السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واني سلامي دمان بعض كحران يوتيوب كيغا مونيتاك سو دوادا دمانتين مانتا ورودكاستيغنا waxaan kaga hadli doonaa qodobo ku saabsan sideen ku gaaraa hadaf. intaan gudaha u galin haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar, haddii videoga ka heshaa like saar, sidoo kale asxaabtaada la wadaag oo share garee si uu dad badan u gaaro ay uga faa'iideystaan. mahadsanid. waxa kaliya aan ka hadlayno wuxuu yahay inaan fahanno sideen ku gaari karaa hadafka aan leeyahay, nolosha aan ka leeyahay, sideen ku horumarin karaa. qodobka koowaad wuxuu leeyahay divine waa inaad cadeysaa ama aad qeexdaa your goal clearly, si waadax inaad u cadeyso. qofka hadafka uu leeyahay waa inuu cadeeyaa si hadhow uu hadafkaas uga guul gaaro. haddii uu hadafkaaga ku cadeen waxba ma qabsan kartid. qodobka labaad ee aan ku horumarin karo hadafkayga ama aan ku gaari karo hadafkaan u baahanahay waa break it down, inaad kala qaybiso hadafka. hadafka marka aad kala qaybisa wuxuu ku fududeynaa wixii adkaa inuu fududaado, wixii fududaana inuu sii fududaado. so waa inaad kala jibisaa hadafkaaga. qodobka saddexaadna wuxuu leeyahay create a plan, qorshe la imow. macnaheedu wuxuu yahay qorshe la imow qofka in uu samayn karo qorshooyin oo u degsan, taasoo ka caawinayso in uu hadafkiisa ka guulgaaro ama uu rumeeyo. sababtoo ah qofka aan qorshaha lahayn hadaf ma samayn karo, guulna ma ka samayn karo. qodobka afraad wuxuu leeyahay set deadlines, inaad samaysato waqti uu barnaamijkaas ku dhammaan karo ama hadafka. tusaale ahaan point ka bilowdo point uu ku dhammaado. so waxa inay meel ka bilowdaan meel ku dhammaadaan hadafkaaga inuu yeesho waqti inuu yeesho. so hadduu waqti lahayn hadafkaaga ma ku guulgaari kartid. qodobka shanaad wuxuu leeyahay take action, ficil la imow, ficil samee. macnaheedu wuxuu yahay inaad iska hadasho ma la rabo. so the more you talk the more you get nothing. horaa waxaa loo yiri hadal yar iyo howl badan, oo macnaheedu yahay hadduu hadalkaaga yaraado hawshaada badanayso. so iska hadal keliya maaha ee waa inaad wax qabataa. ficilka aad qabanayso keliya hayuusan ku koobnaanin inuu hadal noqdo keliya. wax qabo, ficil samee, waadna ka guulgaari doontaa hadafkaaga insha allah. qodobka lixaad wuxuu leeyahay monitor progress, in aad horumarkaaga dabagasho. macnaheedu dabagalka wax kale maaha inaad fahansan tahay meesha aad u socoto iyo meesha aad ka imaaday. haddii meesha aad u socoto iyo meesha aad ka imaaday isku mid yihiin, wax horumara maadan samaynin. laakiin hadday kala duwan yihiin ama tusaale ahaan oo meesha aad u socotay ay aad u sareyso, waxaad gaartay qayb ka mid ah horumarkaaga. horumarkana waxa uu u baahan yahay indho ku hayn. qodobka toddobaad wuxuu leeyahay stay focus, oo macnaheedu yahay in aad diiradda saarto pointska aa u socoto. I can do this, waa samayn karaa, waa awoodaa inaan sameeyo barnaamijkan. haddii hadafkaaga stay focuskaas uu yahay uu kuu hagaagi doonaa goolkaaga insha allah. qodobka sideedaad wuxuu leeyahay seek support, oo macnaheedu yahay in aad raadiso caawimaad. yaa ka raadinaya caawimaad qof cilmi ahaan kaa liita? no, qofkaas ma ka raadinaysid. waxaad ka raadin doontaa qof expert ah ama khabiir ku ah waxa aad qabanayso ama hadafka aad ka leedahay. tusaale ahaan waxaad rabtaa hadafkaaga waxaa waaye in aad noqoto software engineer. so marka haddaad rabto inaad noqoto software engineer waxaad u baahan tahay inaad caawimaad raadiso. yaad ka raadinay qof bilow ah? no, qof macnaha waxaad ka raadin doontaa expert ah ama khabiir ah oo takhasus u leh ama yaqaanaba xirfadna u ah software engineerka. so marka hadafkaaga haddaad rabto inaad kor u qaado ama aad rumayso waxaad u baahnaan doontaa inaad caawimaad raadiso. qodobka sagaalaad wuxuu leeyahay celebrate your achievements, guulahaaga u dabaaldeg. oo macnaheedu yahay qofka markuu guul gaaro si uu horumar u sii sameeyo waa inuu dabaaldegaa. guusha markaad gaarto waa inaad u dabaaldegtaa. taasna waxay ku sahlaysaa in aad horumar sii samayso oo yoolkaaga ama hadafkaagana aad ka guul gaarto.